maayirka degmada Ceelaf Weyn Cabdiraxiin aw Yuusuf ayaa kormeer ugu kuurgalayo qiimeynta xaaladda abaareed ku galaabixiyay deegaanada gal iyo qac xamilka Darweyne oo ka tirsan degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag waxaana maayirku deeq raashin gaarsiiyay dadka tabaalaysan ee abaartu ka farasaartay xoolihii ay dhaqan jireen ee ku nool jiidaha bariga degmada Ceelaf Weyn deeqdan raashinka oo qayb ka ah gurmadka taakulaynta guddiga abaaraha heer qaran ayaa waxaa munaasabadii wareejinta deeqdaasi ugu horeyn ka hadlay maayirka degmada Ceelaf Weyn Cabdiraxiin aw Yuusuf Guuleed halka kan waa aaga Leymad oo ay kala degan yihiin dad qiyaasi 150 qoys oraantii waxaan soo gaarsiinay ilaa intii biyadaamska socday iyo 20 biyood raashinkana waxa maanta aanu keenay 27 qoys kaliya raashinkood إن شاء الله تعالى وحير يوح بدن بوحي له dadka in la gaarsiiyo ayaa waajiba iyaga aan dadka waayeelka waxaan ku boorinay inay qaybsadaan si kastaba u gaadhay ama inta uu jilicsan ee maanta macluul dhimanaysa ay gaarsiiyaan ama sida ay ugu filan yihiin ay isu gaarsiiyaan waxaan sheegaynaa guddida heer qaran abaaraha degmada Ceelaf waxa la siiyay 900 qoys goobtan oo kaliya ayaa waxa degan 150 qoys goobahan waxa qaybnayna waa ilaa 40 goobood in ka badan baan raashinkii ku qaybinay goob kastaba inta aad aragtaan saddex laabkeedu dad ayaa degan markaas waa goob waxaan ka raawo waa goobta ugu wadad yar hase yeeshee waa goob oo mana biyo ka dheera xoolihii waa aragtaan oo dadkii intii badneed waa ka baqtiyeen hadda waxay dadkan u baahan yihiin in dadka uu laga ururiyo laga guro meesha oo meel lagu qoodiyo loo soo la gaarsiiyo ama raashin la soo gaaro rajo fiican laga qabo hadan ilaa xoolaha wixii nool wax rajo laga qabo maaha wixii kale waqtigooda waa aragtaan insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmad dhaqso ah oo degdega oo waasic ayna siiyo waxa iyaguna dhankooda ka mahad celiyay deeqdan raashinka ah la soo gaarsiiyay qaar kamid ah dadka xoolo dhaqatada ah ee deegaanadaasi hadaan soo gurnay dadkaanu halka ugu nimi wax qaaqulaya wax xumayna kalamaanu kulmin wixii taagtooda waa soo dhaweeyeen dadka xooluhuna markaanu ka warrano way iska baxayaan waxay cunaana ma haystaan bixidoodu aad bay u badan tahay wax lagaga yeeshoonayo siiban ariga ma jirto caawimada waxba dhulka yimi dadka hadii ay u yimaadeen ma ay wada gaadhin haddii aanay wada gaadhinna waxa loo tirinayaa macnaha dadkii qaybinayay oo kaalmaha ku jiray sidii loo kala dheereynayay baa loo kala waxaas u yar kala